hawiyow maanta tan iyo midka xun inay dhacdo idinkaa sababo ah haddaadan shalay dhihi lahayn Soomaali nimankan waa walaalahayno annagay nala dhasheen waxa waaye tanuma dhacdeen idinkaa sababo ah waxaan saad u sheegaa oo muuqaalkeyga in la sheer gareeyo la gaarsiin raba qof kastoo afka hawiyo ku hadla ama gurgaati ku hadla oo wax garta ama social media ku jira in wax laga qabto arrintan ay ka hadlaan haddii maanta nin habar gidir ama abgaala ama maaragtay kada lagu samay lahay waxbaad ka dhihi leedeen oo ka qaba leedeen kuwa hawiye isku sheega naftooda waxay leeyihiin gabooyo ninka gabooyaha asaas la yeelo qoys gabooyaha haddaan gabooyana maxaan ka daba dhigay gurgaatiyo gabooyo xaggee iska soo galaan yaa ii sheegi kara wax aan idin kaga fadhin lama arko maanta nin hawiyaha oo kuwa hawiyaha loo yaqaan ayagana isu yaqaana haddii dhibkan loo geysan war maanta Minnesota nin xil ka raadinayo oo magac hawiyo waa ilaa Muqdisho ka yimid hawiyo daarood ahaan loogu hadlaa war Soomaaliya loo hadlaa annagii iyo gurgaati dhexdeena oo hawiya tihiin la leeyahay meelaha qaar fadhi ku dirka la fadhiyaan wax natiijo aan ku aragaa maaragtay nala daba taagan yahay war hawiyaad sheegaysiin naga dhaafo nala dhinac mara haddii kale wax muuqdo la taaba kara keena dadtiina annaga hana takanaynina takana waa waxaan u aanu waxba ku qabin ilaa hawiyo wanaagiisi idinkeedii ma soo dhaafin teeda kale dadkii waa la soo qabtaa leeyahay haddii la soo qabtay ayagaba wajiyay fadeexeeyeen sawir ka qaadeen social media dhigeen hooyo aabe ilma ayagoo kabcaga madax ka saaray hooyo baadil ay soo saareen maxaa duudkooda loo soo sawiray maxaa wajiyada loo soo sawir waayay haddeera cadaalad darro wada la dhigi karaa indar baa xaquurad qaatay dhaqashadeed maala leeyahay maanta haddii caqabka afka laga saaray aad qaadato berina in nolosha lagu gubaa ku xigto saad ugu ka cilaadna adaa laga rabaa saad ugu jawaabi laheedna adaa laga rabaa wallaahi billaahi tallaahi inayna Soomaali xushmad aqaanin waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta dhacdo ka dhacday magaalada Boosaaso oo ku dhacday qoys iska hurda ee gurigoodii jooga loo soo dhacay si dhaqan xumo ah oo wuxuushnimo ah loola dhaqmay oo islaamnimada iyo Soomaalinimada iyo bini'aadanimada intaba ka fog aad iyo aad aan uga xumahay waana cambaareynaa waa wax laga xumaado aad iyo aad aan uga xunnahay waxaa waaye dadka markuu islaam yahay waxaa la rabaa inuu islaamnimada ka run sheego oo ku dhaqmo waxaad arkaysaa dad kule wadan hebel waa muslim walaalahayn waay atoore hebel waa muslim filmaantow keenaa waa nin muslim oo muslimnimadaasaan ka raadayna oo ka shinsayna oo ka uraynaa leh nin muslim ahoo dalki kula joogo walaalkaa ahoo isir Soomaali dhiig Soomaali ku jiro wanaag aad u weysay aad leedahay wadan hebel waa muslim oo waa walaalkeen xaguu yaala yaa ii sheegi kara maanta yaa ii caddayn kara arrintaas yaa wax ka dhihi kara oo igu beeni kara islaamnimada oo wadan kale loo raadaa oo annaga walaaltinimada aan yani Soomaali dhexdeed lagu waayay maxay tahay waxaa la rabaa in Ilaahay laga cabsado qoyskaas waa lagu xadgudbay aad iyo aad aan uga xumahay waana cambaareynaa taas waa taas teeda kale waxaan rabnaa maamulka Puntland maamul sharaf leh oo shaqeeya aan ku ogaay aniga waa joogi jiray Boosaaso iyo Garowe gaalkacay waa joogi jiray meel cadaaladu ka shaqeyso oo qofkii nabar lagu dhifto haddii u lagu dhifto inta maxkamadda tago uu soo xukunsan aan ku ogaay oo leeyahay intaas waa ku gaartay dhibka inta ku gaar intaas muu leeyahay haye qaymayso ee loo kala xukmiyo ama koonfur ka yimaado ama waqooyi ka yimaado ani taasaan ku ogaay dad sharaf leh oo cadaaladda iyo sharciga oo ka shaqeeyaan ku ogaayo aan qabiil iyo kala sarreyn aan ku dhaqmayn aan ku ogaay ayadaasaan uga fadhinaa dadkii waa la qabtaa leeydi in si cadaalada loola dhaqmo cadaaladda la marsiiyo oo sharciga la waafajiyo oo waa in adeerkay waa in hebel iyo waa reer hebel iyo aan midna la dhihin oo aan la gacan bidixeyn oo aan la jeclaysan oo aan lees dhabar taaban oo dar Ilaahay looga dhaqmo taariikhday gelay haddii kale tan taariikhda ay gelay waana barmadow hadday Puntland wax ka qabo weyso sharciga keeni weyso waayo qoys hurda inta loo tago kob cagta madaxa laga saaro aabbe iyo hooyo iska hurdaaya la argagax geliyo wax taariikhda gala waaye waxaan hore loo aragoon la maqal waaye waa waxaan dhicin waaye waxaa loo baahan yahay inay Puntland inta ay ku sameeyaan ficilkeeda in la eg sharciga islaamka qabee ay ka keenaan oo lagu qanci karo ay ka keenaan haddii kalena inta odayaal loo diro la masaajeeyo xaajadaas afdaboolan dahab in lagu dhameeyo ha la isku dayo ma la isku dayi karo wallaahi billaahi tallaahi uqubaa ka dhalaysa haddii la isku dayo waxaa waaye dadkaasu daday leeyihiin ilaahayna waa leeyihiin
waxaa la rabaa marka in cadaaladda hadday cadaaladu jirto inay cadaalad helaan oo cadaaladda wax loogu qabto. teeda kale dadkii waa la soo qabtaa la yidhi, haddii la soo qabtay ayagaba wejigay fadeexeeyeen oo sawir ka qaadeen oo social media dhigeen oo hooyo iyo aabbe iyo ilma iyagoo kobcaga madax ka saara hooy baadil ay soo saareen, maxaa duudkooda loo soo sawiray? maxaa wejiyada loo soo sawiri waaye? haddeeraaba cadaalad darro la wadaa la dhihi karaa. yaa igu beeninaya? qofka markii la soo xiro eedaysana waayo dambiilo lama dhihi karo, wejigiisa in lasoo bandhigaa waa xaaraan. taasaa leeyahay miya? xaaraan maaha. qofkan uu asagu uu dembiga ka galay maxaa asaga wejigiisa loo soo bandhigay? teeda kale boosaaso anu waa kala aqaan, laanta hawada ilaa iyo maxaan ku yidhahdaa niyu boosaaso ilaa baanrama ilaa buule ilaa boqolka boosh ilaa xaafatul carab ilaa suweyto ani waa joogi jira. intaasaa inta la dhex mara ayaga laga soo qabta. haddayna ayaga ahaynoo shaka ku jiro tuhun kaliya ay tahay ma la soo qaba lahay? lama soo qaba lahay. waa inay ku caddaa. maxaa wejigooda loo qariyay marka oo duudkooda loo soo bandhigay? waa in weli loo xil hayo waay oo nin jeclaysa ay meesha ku jirto. waa kuwaana afartaana soo qaban wejigoodina waa kana waa muuqdaa, maxaa loo dhihi waaya? waxaa la rabaa in cadaaladda laga run sheego, in ilaahay loogu dhawaado. maalintii yowmal qiyaamana waxbaa la iska weydiiyaa, adduunyana waxbaa la iska weydiiyaa, annagaaba taaganba. taasi waa taas. waxaan rabaa inaan la hadlo hawiye ama gorgaata hawiye. maanta waxaa ciladan loo geystay waa dad maxamed gorgaatiya oo la yaqaan, ayaguna isu yaqaan. waxaa la rabaa hawiyow maanta tan iyo midka xun inay dhacdo idinkaa sababo ah. haddaadan shalay dhihi lahayn soomaali nimankan waa walaalahayn oo annagay nala dhasheen, waxaa waaye tanuma dhacdeen. tanuma dhacdeena idinkaa sababo ah. waxaanse hadda u sheegaa oo muuqaalkeyga in la sheergareeyo la gaarsiiyey rabaa qof kastoo afka hawiye ku hadla ama gorgaati ku hadla oo wax garta ama social media ku jira in wax laga qabto arrintaan ay ka hadlaan. oo hadal keliya lama rabee si ficila ay wax ka sameeyaan. waayo maanta tan dhacday ayaga hawiyaa sababo ah oo gorgaataa sababo ah. walaalkeeyaa tahay, waxna kuma kala bedelni. hadday maanta suuqa geli lahayd kumanaan sano ka hora waxaa suuqa gashay walaalkay maaha. maantana waa walaalkaya meelaha qaar lala taagan yahay, dadna waaba inkirsan yihiin. tan idinkaa sababo ah. inay ku dhacda idinkaa sababo, inay nagu dhacda idinkaa sababo ah. maqle waxaan idinkaga fadhin lama arko, wax aan idinkaga fadhin lama arko. maanta nin hawiyaho kuwa hawiyaha loo yaqaan ayagana isu yaqaana haddii dhibkan loo geysan. war maanta Minnesota nin xil ka raadinayo oo magac hawiyo waa laleeyahay muqdisho ka yimid hawiye daarood ahaan loogu hadlaa. war ir Soomaaliya loo hadlaa. annagii iyo gorgaati dhexdeena ah oo hawiya tihiin laleeyahay meelaha qaar fadhi ku dirka lala fadhiyaan wax natiijo aan ku aragaa maaragtay nala daba taagan yahay. war hawiyaad sheegaysa naga dhaafo nala dhinac mara, haddii kale wax muuqdo la taabo kara keena. dadtiina annaga hana takanaynina takana waay waxaan u aanu waxba ku qabin. ilaan hawiyo wanaagiisi idinkeeda ma soo dhaafin, xumaantina annaga artiin miya? marka la istiraana tirada inaan ugu buuxsatiin arabtiin wax suurtagal ma idinla taa? wax la qaadan kara maaha. aan mudnaado maalkana isii magacna yaan waayin waayo macnaha ma taasaa suurtagala? wax la qaadan kara maaha, wax la qaadan kara maaha. hawiyow hadday hawiye aan nahay run tahay wax la yaqaano arrintaasa ka timaado. annaga daaroodha lagu duula ma lihin, dashishaa lagu duula ma lihin. dad bini aadana qalad waa geli karayaa, qabiil xunna ma jiriyo, qof xunsa waa jiraa. laakiin berkuliinba ficilkan waxaa sababo ah xumaana idinku geysateen. ya haddii maanta nin habar gidira amba abgaala amba maaragtay kada lagu samay lahay waxbaad ka dhihi leedeen oo ka qaba leedeen. kuwa hawiyihi isku sheegaa naftooda waxay leeyihin gabooyo. ninka gabooyaha saas la yeelo, qoys gabooyaha saas. haddaan gabooyana maxaana kaa daba dhigay? gorgaatiyo gabooye xaggee iska soo galaan? yaa ii sheegi kara? gorgaataa tahay iyo gabooyaa tahay madaa isku yaqaan? kuwii hawiyaha iyo social media ku jira waxay leeyihin gorgaat qoys gabooyaha loo dhacay, asa dhibaatadaas loo geystay, qoys gabooyaha le. gabooye maan aha aniga? maxaa gorgaatiyaan adaa ila miya? laba afaad ku hadashaa miya? afkaaga dhigaaga soo maqlaan miya? ya aniga gabooye maan aha? intaa gabooyahan ahay loora marka daaqadaha iga xiratee gabooyeyga aan ku jire. haddii kale gorgaataan ahay gorgaato waxau hela aan helo, waxau ku hadla aan ku hadlo, waxau qaata aan qaato. soomaali aan la macaamilo. taasi waa taas. teeda kale dadka aan ka hadlahayo Puntland aniga xumaan uma qabo. waa dad macnaha dadkeenu ay dhex degan yihiin oo la dhaqmaan oo ku dhex nool yihiin oo ilaahay oo ku noolaysiiyey. reer Puntland koonfur iyo waqooyi meel walba Soomaaliya waa isdhex degtaa, wax colaado ma dhex yaalin. qof xunna waa la arki jiray, qoys xun qabiil xun ma jiro, qof xunsa waa jira. qalad ka dhacay waxaan rabnaa in laga daba tago, wax laga qabto. hawiyana waxaa waaye markaan hawiye ka hadlaayana aniga xumaan ma hadlaayo, laba qabiil isma tusaaye. waxaa waaye
qabiiladu ayagu anaga naga maaragtay xoog badan oo naga hub badan oo naga xoolo badan le Soomaali waa istaqaanaa oo laan dheernimo ku faana ay haddana midkood ugu hooseeya kan ugu weyn qabiil la soo taagan yahay Soomaaliya qabiil lagu qaybsaday war TikTok ya qabiil qabsado Facebook ya qabiil qabsado meel walba qabiil lagu taagan yahay maxaa ani macaabay ugu taa maanta haddaan qabiilkayga ka hadlo oon hawiye la gar dhigtoon ilaa war nabad geliye amba haddaan hawiye sax ahay miiska waxay soo saara ilaa madaxiina u takanooba haddii kale hawiye maaha nin gabooyaha Soomaaliya ku daadsan aan noqday nabad geliye aan dadka ilaa la macaamile war hawiye dartii dadka dhexdiisa magaca nooga maqan oo maala nooga maqan xoolaha nooga maqan guryaha nooga maqan beeraha nooga maqan wax walba hawiye dhexdiisa nooga maqan hawiye taana war leedii war hawiye haddaan nahay waxa aan mudan nahay oo hawiye mudan yahay nala mara haddii kale nabad geliye taas hawiyaan leeyahay oo gurgaataan leeyahay teeda kale waxaan la hadlayaa dadkan ka dhashay oo sharafta badan ee beesha Maxamed Gurgaati ee Mandhibaan waxa waaye tan haddaan wax laga qaban ka xumaan dhacay guubaaba iyo dad isku dirid iyo colaad kicinna igama ahane waa danteena markaan ka hadalno annaga gacanteenu isma gaarto dhul fogaan kala joognaa adduunyada horumarka la gaaray waa social mediahan iyo maaragtay aaladan la helay waa oo maanta qof Itoobiya jooga iyo qof Mareykan jooga iyo qof Yurub jooga qof Carabaha jooga aan la hadli karo asaguna ila hadli karo annagoon is aqoon oo magacaas oo naga dhaxeeyo oo maaragtay kula siiyay waxa waaye kala ma hari karno ilaaha iskaanya baday haddaan maanta aniga dhibaato ku jiro idinka waa idin dhibe haddaa idinku dhibaatoontiina aniga waa idhibe waxaa la rabaa in wax muuqdo aan ka qabateen aan ka qabanno oo aan jawaab ka bixinno oo dadka la xisaabtanno annagoon cidna ku gafin cidna colaadin inaan xaqa aan leenahay aan dadka ka raasano xaqa nagu leeyahana aan iska bixino muslimka ilaahayna aan la macaamilno waayo nin dharbaaxa quureed qaatay dhaqashadeed maalaa leeyay maanta haddii cagkobka afka lagaa saaray aad qaadato berina in nolosha lagugu gubaa ku xigto saad uga ka cileedna adaa lagaa rabaa saad uga jawaabi laheedna adaa lagaa rabaa wallaahi bilaahi tallaahi inayna Soomaali xushmad aqaanin anigu waa ogahay inuuna qabiil soo dirin af qabiil ku hadleen qabiil ku soo heshiin wax la sameeyay qabiil samayn dad dhalinyaraha oo xisaabtamayno wax ma garataa ay yihiin laakiin nima abeesa sanka ka martay markaas waxa la yiri abeesa wax ma cuntay maxaa kugu dhacay wuxuu yiri abeesanina wax cunwa ogahay meeshay jidka ka maraysa ama halaq marayna qataan ka baqa annaga in qabiil ku duulmayna qabiil lagu duulan ka hadlimayno laakiin waxaasi wax u eg haddii Soomaali cid kale lagu sameeyay ayaga hadda naftooda maxaa ka dhalay ayagaas haddii maanta lagu sameeyay maxaa ka dhalay adigu ba isweydiiye maxaa ka dhalay waxaa la rabaa marka inaan jawaabti ugu macquulsan oo qofkii loogu jawaabana oo ku qancaa qofkii ku jawaabana oo ku qancaa inaan ka bixino heerkaygana taasaan kula hadli lahaa annagoon cidna dhibaatayn cidna u gafin inaan xaqa aan leenahay in sharciga naloo mariyo annagoon ku kala raaricin aan wax aan maaragtay sharciga ku kala xukunsan waxa kale ku daraa dad ninkii qofkii hadalkayga dhibsada oo qalad u fahma waxaan u arkaa maanta Mandhibaan waxyaabaha ka qaldan inay kasii qaldanaadaan qof raalli ka ah qof inuunan macnaha yacni Soomaali ugu saro maro amba wax la qaybsado amba wax la kala goosto amba la sinaado amba maaragtay ugu saro maraba qof aan raalli ka ahayn oo wixii la soo mooday oo la oran jiray iyo wixii lagu dhaqmi jiray qof meeshii shalay raba oo shalay gadaal u fiirinayo maanta hore u fiirinay inuu yahay u arkaa qofka hadalkayga xumaan u fahmo amba u fasirta anuu nin dadkiisa jecel u soo baxaanahay una hadlaaya dhibkiisuna ay dhibayaan inaan ka doodo ka hadlo meel walba oo istaago goob walba golo walbana diyaar u aanahay cidii igu diidan amba iga raali duwan waa soo dhaweeyaa waana ka garbaxa haddaan wax qalad ku hadlana waa la celin karaa laakiin maanta qaladka naloo geestay ee aan ka hadlay qofka xumaan u fasirta ee see uga hadli kartaa ama hadalkaas ma ahayn asaga ay la noqoto aduu mid ka fiican ku hadal aduu inta soo baxdid mid ka fiican ku hadal war kuwan anagu ka fiicanaa maanta noo hadlay kuwa aan walaal moodnaa gabooyo nagu tilmaamay walaalna waa la leeyahay marna kule Maxamed Gurgaati waa walaalkay marna waa gabooyo kule marna waa Mandhibaan kule marka aniga waa igu banaantaa ninka kaliya inuu ka hadlo ay ku banaantaaba anigaaba ya iga mudan inuu ka hadlo aniga igu banaantaa inaan ka hadlo anay i mudantaa anay isugay iyo kuwa ilamida oo beeshayda ka dhashay sugay cid kale to ka hadli kartaa ma jirto dadka kale oo ka hadlaa waa dad social media ku kala kacsaa oo dana kale iyo kuwa ay daacad ka toosi dhaba u hadlaa uga qeyroha